naxariis inoo geliyo dushaad ha ahaato video kore to do application javascript waxaan u bedelnay Vue.js videogana waxaan ka hadlaynaa u bedelka React hadda u baahan tahay isbarbardhigga frameworkska waxay ku kala duwan yihiin MDM web documentska aad articlekaas introduction to frameworkska akhri kadib asiga luqadaha mostly frameworkska asiga isbarbardhigaya ka arki doontaa waxaa fahmaysan translate.google la aad sida aniga xataa mararka qaarkood sameey okay waxaa inoo xagay inaan React aan u bedelno soo marka React-ga aan bedelayno difference-ga u dhaxeynaya maxay tahay difference-ga u dhaxeynaya JavaScript-ga hor wax badan uma dhaxeeyo laakiin kaliya waxa ay React-ga naga saacideysaa waxa waaye framework maaha waa library DOM manipulationska naga saacideysaa in virtual DOM aan isticmaalno oo code-keena oo faster noqdo laakiin lines of code-iska wax badan bedelayso sida Vue.js oo kale soo marka hadda meesha aan rule gareynayno waa meeshaas meesha Vue.js ay ka isticmaalayso template engine oo HTML kan wax ka bedelayna JavaScript waxay isticmaashaa JSX oo loo yaqaano JavaScript XML kaasoo ku saamaxaya JavaScript-gaaga inaad ku qoratid as HTML ahaan inaad u qoratid soo marka React website-keedana gey marka React website-keedana CDN noo soo qaad mar walba inta badan CDN aan soo qaadaa CDN-ka ma aha sida prototype bislel prototype-na loogu talagalay testing waxyaabahaas haddaa rabtid create React app ama create Vue application CLN aa isticmaalaysaa meeshaas baas isku dheh kadibna script-ga noo fur marka script-ga aad furtid kadib type-kiisa waxaa ka dhigtaa text JavaScript soo marka text JavaScript markaa ka dhigno second waxay tahay intee React-ga ay wax ka bedbedelaysaa page-ka qaybtaas ay wax ka bedbedelaysaa kadib inaad dhahid const root element inaad ka abuurto kadibna aad refer gareyso document.query selector kadibna aad furto hash root meeshaas i refer garee then waxaa isticmaalaysaa React element aad markaas abuuraysaa h1 oo kale hadaa test ahaan u abuurto kadib equal React create element aan leenahay laakiin JavaScript waxay ahayd document.create element aan dhihi jirnay h1 aan sii jirnay hadda meeshan waxaan leedahay maxaa waaye elementiga u baahan tahay h1 oo kale u baahanahay comma dheh bracket fur curly brackets wuxuu u taagan yahay kan props u taagan yahay children micnaheedu waxay tahay dhexdiisa maxaa dhexgalaya qoraalkan iyo dhexgeli dhexdiisa haddaa rabtid React element kale waa dhexgelin kartaa kadibna sidee loogu render React dom.render waa default function oo ku dhex dhisan DOM-ka kadibna h1 element intee lagu render gareynaa waxay ku render gareysaa root element-ga live server hadaa ku kicino aad control is dhexdid automatically waxa u jeedaa React oo h1 ah waa lagu render gareey soo marka meeshaas children-ka array ka dhigi kartaa waxa u pass gareyn kartaa inta number inta children u baahan tahay ama qoraal ha ahaado ama React elements kale ha ahaado way ka soo dhex baxaysaa it means dhexdiisa append child-ga camal ay u dhigantay okay marka had saan u fiiriso fur meeshaas fur h1 mujida React to do app dhamaantooda meeshaas ugu jeedaa haddaa rabtid comment saar link bis comment iska saarna meesha oo kaas object-ga empty ka dhig kadib gadaala kaga baasi kartaa sidaan iyo children inaad dhahayd waa isku wada mid kadibna to do application soo marka React to do application space u dhexeyso the same thing one mujida okay laakiin inaan code-keena sidaan u qorno it's not economic waxaan u baahannahay inaan u qorno waxay leedahay powerful React ee Facebook hadda maintain kareyso ayada ay leedahay JavaScript XML wax loo yaqaano JavaScript XML muxuu u taagan tahay in HTML code JavaScript ku dhex qoran kartid waay soo marka tusaale ahaan h1 element equal inaan dhaho h1 tag caadi sida HTML-ka aan ku qoran jiray soo marka code-kana waxaa loo bedelayaa automatically sida haday aan qoreyno oo React.create element oo si default si background ah loo bedelayo wax loo yaqaano plugin loo yaqaano Babel waa arkayna hal mar aan fiirino React to do application markaasaan nahno browser ma yaqaano RxJS-ka wuxuu u baahan tahay in la translate gareeyo oo waxaas loo translate gareeyo React loo translate gareeyo soo marka code-ka hal mar noo koobiyay waxaan leedahay Babel kadib browser-ka fur kadib markaan browser-ka furno code-kan marka maxay babel.js.io okay try it out dheh meeshaas ku paste gareey automatically fiir dhinaca kale soo jeed React.create element h1 meeshii object-ga null the same thing waaye soo marka intaasay u dhimadaa soo marka sidee ugu soo darsan karnaa browser meeshaas ku dhufo kadibna CDN-kan noo soo koobiyey koobi dheh qaybta kore noogu paste garee soo marka pure JavaScript hadda ma qorayno marka meeshaan textiga meeshaan waxaan ku bedelaynaa Babel aan ku bedelaynaa okay marka Babel ku bedelno waxaan commentiyada
mujida automatically oo shaqeey haday ma shaqeynayo dhahay hadda wuu shaqeey okay intaan naga tirtir hadda marka anagu XML ka adeegsanay JSX kaas adeegsanayna aan koodkeena qornayna soo marka waxa ugu horeeya aan u baahanahay waxay tahay in aan formkii iyo UL-kii aan qorno soo marka let initial element kadibna aan dhaho equal marka rabtid group of elements inaad siisid maxaa samayn karnaa define ku laabeena hadda for by default kadibna meesha noo soo qaad koodka view-gu waaye formkaan noo soo copy dheh meeshaas paste ku dheh HTML element caadi ahaan okay add submit kan waxaa isticmaasha view naga tirtir iyo ID-gaas hadda uma baahni okay intaan view model uma baahni okay intaan kale okay waay okay hadda haddii aan save dhahno okay UL noo raaci meeshii listiga ay kusoo bixi jireen testing ahaan noogu sii qor okay waa kaasa oo error haysto sababtoo ah h1 element will refer gareena waan tirtirnay laakiin hadda initial element yaa ku bedelnay initial element dheh okay error kala soo baxay okay mujida 40 oo naga diidan yahay 4 taas macnaheedu waxay tahay reserved waaye for loop oo javascript because meeshan javascript la jooga marka for isticmaalaysa html4 ah qoraysa then waa kaasa hadda everything okay waaye markaa furtid waa kaasa laakiin fiir meeshan problem ay jira div kala ku sii dhex jiro laakiin anaga div inuu div kala dhex gal ma rabno haddii aad empty u baahan tahay react.fragment wax la hayaa jiro react.fragment waxa waaye in wixii ku combine karaysa adigoo waxba div la dhex gelin oo si caadi ah ay kugu aruuriso ma jeeda react.fragment cagsiga waxa u dhigantay inaad ayadana iska tirtirtid bracket fur bracket xer sidaan waxay u dhigantaa react.fragment the same thing waaye wax div ayadoo la dhex gelinayna okay sidaan marka ku socon inta marka variable aan oo hayo waxaa jirto components framework wuxuu isticmaalaa wax loo yaqaan components special react ayada wada components waa soo marka functional component wax la sameeyaa laakiin hadda variable kan as a function ahaan oo qorayna okay equal oo qoranta bracket for kadibna arrow function maxay qoranta as a function intaan marka soo return garay return ku soo celi okay bracket kaas meeshaas curly brackets body u fur kadib return intaas celi soo marka sidaan hadda dhahayd waa function caadi u taagan tahay return hadaa dhahdina meesha initial ka mujida error way function reference ma ogolaanayo waxay u baahan tahay inaad call gareyso oo value caadi ah siisid soo marka function calling ka caadi hadaa inta kaga sameeysid variable caadi oo soo wax soo return gareeyo oo qaadanaya oo shaqeynaya laakiin as a component aan sida uu isticmaali karnaa as a component oo isticmaalaysid element tag amaan oo furaysa bracket for bracket xer kadib self closed u sameey hadda mujida laakiin cilada jirta waxay tahay sidaan react weydiidaysaa kaasi qalad waa waxa laga rabaa Pascal case inaad isticmaashid marka Pascal case waxa waaye variable-ka ugu horeeyo aad dhahay xarafka ugu horeeyo inaad capitalization ka dhigtid markaas component ahaan u fahmaa okay hadda okay waay wixii marka component iyo hadda kaas ay u taagan tahay javascript variable hadda ma aha okay marka sidaan aan ku sii soconaynaa sana wax ku developnayna soo marka meeshaas inta return la gaarin meeshaan variables waxa ku awan karnaa soo marka array-deeni oo inta hadda noogu abuur tasks kadibna default objects ka noo geli kadib meeshaan paste dheh sidaan react qafki yaqaano variable san functional looguma sameeyo laakiin waxaan rabaa qaladkeena inaan wax ka barano inaan mistake sameeyno kadib aan wax barano marka hadina wax mujida error because java uu ka diiday JSX inaad stringify u bedeshido object caadi soo bandhiga json.stringify tasks caadi soo baxday markaas hadda hadii aan ku daro copy aan dhaho duplicate aan dhaho meeshaan one aan ka dhigo kana aan dhaho some react mujida wixii way soo baxayaan second marka waxa inoo ah sidee marka aan li aan u dhaxgelinayna meeshaas bracket kala furaa bracket kala xiraa javascript code caadi ku qoran kara marka inaad tasks.map kadibna aad dhahdid each task waxa soo map galaysa ayadoo li ku raab galaysan return kadibna aad dhahdid li bracket for span dhaxgeli spanki waxa ku sameysaa task.name wajida oo inta cilad yar ka jirta oo maxay la soo bixi laada soo task bas laga rabaa task san dhahay okay hadda wajida marka wuxuu ku leeyahay each li list walba waa ina key ku sameysaa soo marka key equal composer waa ina key isticmaasha si hadhow daatada list kala tirtiraa mid kale loo kala saaro okay san view isticmaasha waa ina curly bracket isticmaasha task.id key id ugu dhig soo hadda okay waay listigu geli soo batankii ku dhex qabo kadibna delete ku qor submit kaas ka tirtir waxa dhahdaa typekiisa batan caadi ka dhig delete soo hadda okay waay automatically wixii si caadi u render gareeyo
soo marka functionalitygiisa iyo wixiisa marka intaan waa inaa ayada marka component kale ka dhigaa si meeshaas UL functionality badan oo delayedki iyo waxyaabo badan ka dhacayso meeshaan oo JavaScript functions ka dhigan kan component waa inaan ka dhignaa soo marka waxa u baxsanaynaa to do list element oo Pascal case ina isticmaashid function arrow function pass ina dhahdid kadibna meeshaan automatically waxa uu wacaysaa function kaas magaciisa automatically parameter ahaan props oo qaadanaa waxa la wixii oo parameter la soo gudbiyay intaas waa so return sorry constant ku inaga qaldanay so UL ka ama destruction samee waxa loo soo baas gareynaa taskiski oo idil loo soo baas gareynaa bracket for as element ahaan u isticmaal to do list element slash saas ugu xir kadibna parameter oo xasiisa props oo taskis ah equal bracket for taskiska oo localka ah initialkan ku dhex jiro okay meeshaan area jiro maxaa dhacay magaca taskis inta taskiya samee xagga propska stack ahaan taskis ka dhig markaa okay hadda same wax error ma jiro okay component-kan wuxuu soo celinaa listigan ayada ina component kale ka dhigno waaye si ay hooshii koodkeeda noogu simplify gareysto so inaan dhahno billy list element oo kale inaan iska dhahno kadibna equal bracket for arrow function bracket ka xir return maxaa soo celinaysaa li ga hamar noo kat noo dheh meeshaas paste noogu dheh automatically wax alla wixii li marka each component oo li marka wuxuu qaadanaa probka destruction aan ku sameyno taski caadi ah oo qaadanaya soo marka taski mid walba oo loo baas gareeyo soo randhiga soo marka return each loop ku soo celiyo waxaan sameynaynaa billy element oo kadibna waxaan usii baasaynaa taski hadda taas keygaas xag muhiim ah hadda component-ga key markaas listiga inta la isticmaalayo so error yara jiro wuxuu wax usoo bandhigi lahaa meeshaan task markaasaan dhahayd as boolean ahaan u dhigo laakiin waxaa u baahan tahay variable ahaan taski equal inaad dhahdid arrayda taskiga isticmaalaysa c inaad equal bracket furtid hadda ma jida same everything sida hore u shaqeynaa waxaa jirto devtools oo react isticmaasho react devtools la ma jida inta component ay tahay meeshaan ku arkaysaa bill list element oo 0 keys ah 1 keys ah iyo to do element ku dhex jiraan initial element hadda saddexdaas component ay isticmaalayna soo marka waxaan u baahanahay marka event handlerska oo delete kana meeshaas ku qorno meeshaan submit keedana initial element-ga inaan meeshaan ku qorno soo marka arraydan sidee wax loogu bedeli karaa loo delete gareyn karaa waxaa la rabaa button-ka marka delete la dhaho in uu soo celiyo ID-ga la delete gareynayo ID-ga UL-ka u soo celinayo UL-kana initial-ka u soo celinayo it means probkii component-ga ugu hooseeya in laga soo turo component-ga koowaad loo soo dhifaa marka button-ka on click marka la siiyo handle delete function-kaas aan sameynayna kadib function-ka component-gan waa lagu dhex abuurayaa aan fiirino inuu shaqeynayo consti sorry equal kaniga tirtir waa qalday adoo gadaal ka tirtiraya equal arrow function kadibna click button-ka la siiyo aan fiirino ID-ga noo soo baxay console.log deleted ama delete click ku dhufo console-ka ugu geey mar walba click siisid ma jida delete button click soo marka ID-giisi meeshaan ID-gii component-gan lagu hayaa si aan u aragno task.id aan leenahay automatically marka click siino ma jida ID-ga click lagu siiyay ayaa soo baxay soo marka waxaan u baahanahay ID-gan inaan component-ga ka koray aan u tuurno sidee ugu tuuri karnaa waa inaan isticmaalnaa markii oo kor wax loo tuurayo props la isticmaalaa hoos markii wax la siinayo props la isticmaalaa halka view-ga isticmaasho emit iyo props isticmaasho soo marka parameter kale wuxuu qaadanayaa on delete kaas oo callback-gaas parameter oo function ah on delete wac kadib maxaa u pass gareysaa task.id on delete marka intee lagu qabanaa waxaa lagu qabanayaa to do list element UL-ka so UL-ka wuxuu sidoo kale as parameter ahaan inuu ugu gudbiyo waa function-ka reference-giisa soo komada qalad ah komada iga tirtir space dheh on delete kadib bracket fur on delete kala function-ka marka intuu ku abuuran yahay as callback ahaan reference ahaan u sii console.log aan aragno value inuu inta soo gaaro marka click siino ma jiro to do element si aan u cadeeno waxaan plus dhahaynaa
soo marka eventiga waxaan ka dhigaysanaynaa from ul parent mujida eventiga waxaan ka dhigaysanaynaa ul ka korkiisa hadda eventiga ka dhigaysanaynaa soo marka uuna soo gaaray maadaama uuna soo gaaray waxaan ku qasbannahay inaan parameter ahaan oo reference ahaan oo nagu soo imaana waxaana soo siinaya initial elementiga meeshaan markii kan loo soo waco automatically waa muhiimadda koodkan u baahannahay sharaxaad badan hadda kama bixin karno waa conceptiga ugu weyn oo loo isticmaalo waxyaabahan ama redix ama context API waxaa loo yaqaanaa prop drilling concept ah loo yaqaano waay soo marka eventiga oo on delayed-ka functionkiisa ugu dambeeya intuu ku abuuran yahay on delayed markaan dhahno wuxuu qaadanayaa variable oo laga soo siinayo buttonka laga soo siinayay kadibna console.log delayed-ka kaliya la siiyay marka inaan inta ka dhageysanay initial elementiga weli dhex taaganahay soo ma jeed okay from initial element okay hadda control s dheh okay meeshaan waa inaad to do elementiga functionka referencegiisa u sii dhiibnaa okay delayed soo ma jeed initial elements ko soo dhiibay so next markay saas tahay waxaan u baahannahay ID-ga la soo celiyay inaan arraydan delete kaga sameyno waa kana meeshii loogu baahnaa state waxa la dhahay ama hookiska oo functional soo marka haddii aan rabnaa array tirtirno waxaa leenahay task.filter sida caadiga aan u tirtiri jirnay ID-ga loo soo dhiibay arrayda marka ay waxaa filter gareysaa ID-gaas waxaan ahayn oo idil soo celi it means waa laga tirtiray okay ama destructor ku samee ID ama not equal to value oo function loo soo dhiibay soo marka console.log tasks nooso tasks waa la tirtirayaa marka la tirtiro delete-ki arrayda waa la tirtiray waa la tirtiraa mujid oo control s dheh masafada delete marka loo hato mujid arrayda hal xab bis ku dhex jiro oo index 0 ah laakiin ul-ka weli waxba lagama tirtirin sababta ul-ka mar walba arrayda waa la nadiifiyaa laakiin reasonka wax loogu tirtirin waxay tahay componentigan wuxuu u baahan yahay state inuu markuu isbedelo in react loo sheego functionkan statekiisa uu isbedelay meel laga dhahayo sidaas darteed waxaa imaanaysa wax loo yaqaano use state ama reactive hookieska dhan hadaa maqashid waxay ku saabsan tahay functional componentiga ku saabsan tahay soo marka sidaan u samayn karnaa it means reactive ma aha adiga waa inaad reactive ka dhigtaa sida view kale okay kan initial value ahaan noogu samee kadibna waa iska soo boobsiinaynaa arraydan oo destruction lagu sameynaa maxay tahay tasks set tasks dheh it means waqtiga hadduu kale nagu sii dheeraanayo chorus-ka reactiga aan qaban doono ayaa waxaan ku sharxayaa okay equal react.use state inaad dhahdid marka use state marka default maxaa ah hadday value hadday string tahay value caadi aad siinaysaa hadday array tahay array aad siinaysaa soo marka default tasks waxaa kala initial value arraydaas oo objects wato soo marka hadda markaas waxaa leedahay set tasks function oo set tasks lahay adiga xagga aan reference kaga soo qaadatay kan hadda oo kale arrayda cusub marka la soo celiyo waxaa leedahay new tasks it means taskiska cusub oo after delete la sameeyay waxaa sameynaysaa sorry new tasks inaad dhahdid kadibna new tasks set state new tasks c taskiskii ku baas gareynaysaa kaas comment naga saar hadda okay inta wax ka qaldan yahay okay tasks not markaan refer gareynay use state tasks xagga ka qaldan okay had delete-ki wixii waa laga tirtiraya soo ma jeedid everything automatically refresh ka dhacno default-igu waa soo galaya waa kaas waa laga sii tirtiray okay way shaqeynaysaa it means waa inaad reactive ka dhigtaa oo state ah isticmaashaa oo reactiga ay leedahay soo marka waxaan u baahannahay haddii wixii waa ka tirtiri karnaa inaan formkan asigana component aan ka dhigno oo submitkiisa aan dhageysano oo automatically wax la gelin karo marka isla meeshaan horta intaan component ka dhigin functionalitygiisa hadda hubinaynaa waxaan sameynaynaa function waxaan dhageysanaynaa on submit markii functionka lagu sameeyo kadibna parameter iyo qaadanaya e.prevent default inaad dhahdid prevent default inuu reload isku jiro ka celi then waxaa sameynaysaa ilaahay kuma darnaade set tasks waxaa sameysaa taskiska arrayda cusub arrayda hore destruct garee kadibna hal mar in submit wax la galayo in kala aan hubin rabnaa new task oo object ah noo samee kadib equal bracket samee id equal lengthigii sida caadiga aan sameyn jirnay oo kale so waxaan probaynaynaa mar walba oo buttonka aan dhahay submit la siiyo ama enter la siiyo in data cusub la gelinayo id comma kadibna aan dhahno name equal
double quotation testing mar walba oo wax la sameeyo testing in lagu sameeyo in la gelinayo oo kale. Okay, sorry, new task saas dheh oo object ah automatically waa kaasa. Hadda markaa inta dhaho oo sababta waxaa eventiga button kuma form kuma xiran inaan on submit aan dhaho sorry on waa wuxuu ku bilaabanay oo small ah camel case waay. Okay, kadibna waxaa ku xiray functionkaas inaad reference ahaan u siisid soo jeed mar walba wax gelis test laakiin waxaan u baahannahay inaad textbook qoraalka ku qoran meesha aan dhex gelin karno uma baahnin inaan mujida gadaal kaga daba qabanaya soo marka waxaan u baahannahay textbook qoraal ku qoran sidee v model ma laha kan laakiin waxaa ku qasban tahay inaan sameeyno on change-ga textbook inaan dhigaysano soo marka task name waxa la lahaa inaan sameysano ayadan reactive aan ka dhigno state ahaan aan ka dhigno dot set task name kadibna reactive dot use state waxay mar walba soo celinaysaa array oo indexkeeda koowaad variable-kii wax lagu keedina ah iyo indexkeeda labaad variable-ka function wax ka bedbedelaya ah string waaye default empty ahaan u sii meeshaan task name marka task name-ka inta ku xiraya text box-kan ku xiraya soo marka text box-kii aadhaha ama input field-ga value-giisa waxaa siisaa task name marka task name siiyo wuxuu u baahan yahay automatically inaan on change-giisa dhigaysano on change markaan dhaho equal bracket fur kadib intaan on change hal mar dhihin meeshaan ku dhex fiirnaa inay shaqeynaysa in kale inaan dhaho set task name ama xag function saas waa ugu wacan kartaa marka hal mar waxaan fiirinaa inay shaqeynaysa in kale inaan dhaho event marka loo waco callback function callka marka loo waco waxaan leenahay no set task name kadibna set task name inaan dhaho e.target.values task name ku shub automatically task name kii ku shubaya markii text input field wax laga bedelo soo marka hadhow markii aan isticmaalno task name aan tirtirno okay view empty ku rido why empty ugu ridoya okay I don't know exactly they wax ka jiraan okay view why empty u qaadaya soo marka waxaan ku qasbanahay hal mar inaan kan function ka dhigo intaan ama tirtir function call ka dhig on change input oo kale dheh kadibna aan dhaho let on change input kadibna waxaa parameter ahaan loo siinaa eventiga kadibna waxaa sameysaa console.log value hal mar aan arko e.target.value aan arko okay on change oo ka qaldan yahay functionkaas okay on change ayaa meeshaas ka dhiman okay value-ga hello gel wax soo bixi male why uu u dhigaysan lahayd text box-ka eventigiisa problemka ma jeedaa waxaa laga rabay inaan input dhigayso inaan ii sheegtaan ay ahayd mise waxa waa one way communication waa in la hadli karo ma hadalkiin maqlay okay kaas eventiga aan rabay inaan dhigaysto levelka ku xiray hadda ma jeedaa okay waa soo marka kan set task name meeshaas set task name kadib event.target.value hadda ma jeedaa automatically view react angular c++ swift okay waa kaas oo shaqeynayaan delete hadda functionality oo idil react waa ku sameeyaan laakiin wax yar intaan dhameyn waxaan rabaa inaan wax sii fududeeyo weli formki iyo wax allaala wixii la xiriiro oo idil component gooni aan ka dhigan hadda markaan fiiriyo component aan sameynay kow labo iyo kan oo dhowrna soo laabanaya saddex component marka formka waxaan ka rabaa isagana inaan component ka dhigo oo gooni ah kadib inaan dhaho form input form element oo kale ama to do form element equal functional component class components hadda weli ma isticmaalayo waxaan isticmaalaa functional components because aniga aadan u jeclahay isticmaalka functional components ka in react okay intaan ka dheh kadibna toos u waco so marka formka hadda component-ka aan sameynay on submit-kiisa iyo change-kiisa oo idil event-yadiisa asiga qaas u yihiin oo qaadanayo so marka meeshaan imaado kadibna return-ka kor waaye to do return waxaa celisaa form on submit-kiisa iyo wixiisa oo idil waa kaasaa koodkiisa functionkaasaa ka dhigay as parameter ahaan on submit markuu submit dhaho waxaan rabnaa eventiga in laga dhageysto submit-kiisa parentiga in laga dhageysto because meeshaas daatada aareeda taala wax laga beddelaa so marka parameter ahaan on submit waxaa u siisaa on submit-kii hadda meeshaan yaale kadibna change-gii aan dhageysano input change-ga input-ka kor aan qaadina state-ka input-kana
meeshaan because formka marka inta la keeno text box xagga u yaal text box changegiisa components kaasaan geenaynaa meeshii on delete aan dhehe on submit kii meeshii event able aan dhegeysanayna hadda value caadi ah loo soo pass gareynaa oo laga soo pass gareynayo formka ay ka imaanayso so marka e.prevent meeshaan kama rabno value caadi ah noo imaanayo kadibna nameka value ku bedel intaas kat noo dheh xagga noogu pass garee inta submit on submit caadi meeshaan on submit magacaan ka bedel waxaan dhahnaa handle submit oo kale aan dhahno let handler submit kadibna prevent pass ku dheh okay as arrow function ahaan u isticmaal kadibna functionka loo soo pass gareeyo arraydaas u pass garee task name kadibna meeshaan formka automatically handler local eventigan functionka ha dhageysto handlerka kadib markuu inta ka dhaco oo fire gareeyo task name xagga uu gudbi okay let's look hadday shaqeynayso in kale hadda ma jirtaa to do form listiga uu noo soo dhexgalay oo iraa jiro intuu wax ka jiraa okay set task name hello muxuu leeyahay reference oo set task name lama qos sorry set task name waxaa ugu soo dhex tagay because stateka oo task nameka oo idil waxaa waaye form gooniyan ka dhigay marka meeshaasaa laga aqoonsiyaa mar walba oo wax la geliy okay functionalitygeeda hadda ku jirta view ember react below angularkaas web assembly mustaqbalka ayada loo guri doonaa hello Abbas Abdullahi that's good masha Allah mujida wax walbana gadaal lagu sii daba qaban doonaa pagekii isma tirtiraayo waxaa waaye virtual DOM-kii isticmaalaysaa iyo waxeedoo idil okay